calankana kolley aniga markii ugu horreysay aan arkay waan ka hadlay waana soo bandhigay baraha bulshada waxaan aaminsanahay Sufyaan xaq ayuu u leeyahay calanka Soomaaliya inuu yiraahdo micirku ka soo dhacay ama Israa'iil ayaa laga keenay he has a right dadka Soomaalida waxaan fahmi la'anahay dadka civilized ah oo ilbaxnimada wanaagsan ayaan ka hadlay ilbaxnimada ma aantan salaal isaga soo tuuro inay debate sameeyaan oo laga hadlo oo la yiraahdo Mr. Sufyaan wax kale calanka sidaan ahaa explain yourself marka asaga uu la yimaado هذا سؤالها ويدين دون قال وليما هذا explanation أما إنه نوع معنيه لكن قف إن condemnation لو سمع ما اللي رهدو إذا أمس قف كان debate لو بهاي يوك باللابي هذا ولا دقيس دي وآذان كوكان عن جواب في سمر هورا الله سعلا وحري هذا debate يعني كلا مركا إن شاء الله أضياش يقبلها كجرة ونوفرنا قف كي عنده تكتل سؤال كوبان هل ويديو تن أفر حاصلها يتنقل سيسيفايز ما أنا هل ويديو ما السلام عليكم رمضان كريم وين ود السلام بمانتين سيجار وحن سلام مع شخص سفيان حاربين ويدي له سؤال وذا أدو قاقا سؤال شكوباد وحواي شخص سفيان هو قرصة أفرحاس وحن سو قريي براها برشدة سوشيال ميديا markii shaqo Sufyaan ma la sidii karaa rankii kale oo uu diray oo naga qarsi jiro wuxuu luuqa qagashay jiray ay banaanka inay keenaan oo u talagal ma la dhigi karaayo anagu nagu diray su'aasheeda labaad waxay dhahaysaa daraasad la sameeyay xagga caafimaadka waxa lagu ogaaday ragga guursada in ka badan hal xas iyo 4 jeer kordhaa leh wadna garaac xanuunka wadnaha ku dhaca marka ma la sidii karaa Sheekh Sufyaan دو أفر حاسس لما رجور سدي حالة دي سعاف ماذا وهالسألية هذا ما سن سفيان marka ugu horeysa horta waxaan u macdaynayaa shukri thank you very much runtii waxaad weydiisay su'aal gabdhaha Soomaaliyeed ama dumarka Soomaaliyeed intooda badan ay qabaan ugu horeysa oo ah Sufyaan ma moodaa in uu raggii nagu diray oo wixii la qarqarsanayay banaanka la keenay maya aniga waxaan u heliyay siyaasad ahaan waxaan u heliyay gabdhaha Soomaaliyeed oo saaray ragga Soomaaliyeed ragga Soomaaliyeed saad og tahay marka gabadha la qarinayo waxa loo qariyaa ninkii wuxuu ka cararayaa culays ah ama baqtin ku jirta ayuu ka cararayaa daraaddeed waxaan anigu marka aan champion gareeyay ama aan u campaign gareeyay inaan gabar la qarin inaysan looq ku jirin inaysan hadhow aysan ku imaanin dhibaato macnaha in ama waxyaabaha qaarkood ay dhacaan la inkiro ama si fudud looga tago ama bulshada sumcadeedii aysan ahayn fully fledged married woman aysan ahayn waxaan u champion gareeyo campaign ku saabsanaa in gabdhaha guur la'aanta la guursado aniga meesha hadda aan ku noolahay waxaa jira magaalooyinka marka shaqada aad tagtid dadka shaqaynaya oo magaalada hadda ku jira especially dukaamada waaweyn jooga dumar u badan yihiin waxaan u badan yihiin dad aan weli guursano single ah gaarina da'dii 35 ilaa 40 qaar gaari marka arrintaas ma ahayn in aan ku dirayo ragga inaan gabdhaha ku dirayo oo leeyahay raggu la soo baxay wixiina arrintaasi waa dhinaca kaleeto waxaan u heeliyay campaignka afar xaasadnimadu waxay u heelinaysaa dumarka u heelinaysaa taasaan ugu gudbayaa waayo basiradu waa xaaraan gabadha in la qariyaa sharafteeda ku dilan waxaa fiican banaanka inay joogto taasaan ugu gudbayaa midda xagga caafimaadka ah aniga waxaan ogahay ama aan akhriyay haddana aan ku idin soo bandhigi karaa research la sameeyay oo ninku markuu afar xaas leeyahay stamina production waxa la yiraahdo ama soo saarida jirkiisu in soo saaro waxa la xiriira lipidos and sexuality waxyaabaha la xiriirahay in ay more yihiin than ninka halka xaas qaba caafimaadka dhinaciisana in uu yahay more healthier because immune system kiisu waxa u baranayaa in uu difaaco any diseases ama waxyaabo kale oo qofka uu wataa bacteria ka duwan bacteria kale
nin walbaaba wuxuu leeyahay ama qof walba dumar wuxuu leeyahay different viruses and different bacteria ninku markuu afar xaasle yahay marka wuxuu awood u leeyahay ama uu allah siiyaa resistance sida maanta la ogyahay marka ninka afar xaaslaha lihi waa ka caafimaad badan yahay stamina marka la yidhahdo waa ka badan yahay that's research oo la sameeyo waayo oo maanta aan la qarinayno wax aniga hadda aan quote gareynayo ama aan banaanka keenaan ahayn laakiin la ogyahay the more practice makes perfect ninku markuu afar xaas leeyahay wuu ka stamina badan yahay macnaha functionalityga oo sexualityga way ka sarreysaa ninka halkaas qaba caafimaadkiisuna waa ka sarreeyaa and this research been done by Oxford University Health Department and Research also done by University of Lahore, Pakistan Kutala, laba jaamacadood and it's something well known macnaha xataa ragga oo afart xaas qabaahi Soomaalida markaan nahay way ka caafimaad badan yihiin xitaa da'dooda macnaha way kaga qurux badan yihiin this is waxay ka soo horjeedaa fikirka dadka Soomaaliyeed oo ku jirta ama dadka Soomaaliyeed oo intooda badan wax baran ku jirta oo ah waa ku dhamaanaysa laguma dhamaado waxay leedahay longevity iyo caafimaad waa ka baxay waa maasanta aad u mahadsan sheekh aan su'aal markaan weydiiyo su'aashaas waxa weeyaan sheekh Sufyaan xisbi siyaasadeed baad samaysatay waxaad doonaysaa طبعا waddanka Soomaaliya inaad madaxweyne ka noqoto haddii waddanka Soomaaliya aad madaxweyne ka noqoto ma dastuurka Soomaaliya ee qabyada haddii la dhamaysto dastuurkaas ayaad wax ka bedeli doontaa oo ku simaamuli doontaa mise dastuur adiga aad rabto inaad diyaarto waxa jira aad rabto inaad waddanka ku maamusho waa mahadsantahay cabdi aad iyo aad mahadsan tahay marka ugu horeysa sidaan horeba u sheegay ama social media aan ka banaanka ka dhignay xisbiga tala ku nool ee aan sameynay soo bilowday 2001 waxa uu ololeeyaa inuu wax ka bedelo aasaaska ama qaacidada waddanku ku fadhiyo dastuurka aan haysana maantay annagu waxaan u naqaanaa inuu yahay dastuur gaala oo diinta islaamka soo horjeeda waxaa ku jira maalan sharciyo ama qodobyo hadday hirgalaan maanta waxaan ognahay dastuurka macna xoog ma leh oo dowladdeenu waa dowlad yar oo iska curduna therefore enforcement laguma samayn karo waxaa imaanaysa marka maalin maalmaha ka mid ah oo ay timaado maadaama dastuurka ay ku qoran tahay gabadha ama wiilku inay ku qaangaaraan 18 waxaa imaanaysa maalin maalmaha ka mid ah oo markaad guursato gabar 17 sano jirta xabsi aad galayso oo lagu qirayo ama dastuurka uu kugu xukumayo inaad samaysay rape waxa la yiraahdo ama consensual ha ahaado ama non consensual ha ahaado ama mid isla og yahaado isku raacsan ama yaan isku raacsanaan waxaa imaanaysa haddii gabadhii aad soo nugdayso in lagugu xukumo ama aad gasho dembiga torture ama genital mutilation waxa la yiraahdo waxaa imaanaya macnaha waxyaabo fara badan oo ilaa iyo 18 qodob oo hadda dastuurkeena ka mid yahay waxay si toos ah uga soo horjeedaan diinta islaamka annaga marka reer talkuuna waxaan aaminsanahay dastuurkan maantay noo qorani dastuur bilowgiisa uu soo qoro Talyaaniga amendment yaa lagu sameeyay waxa yaraa lagu daray laga bedelay intii hore Talyaaniga haddana lacag badan iyo wasnanka lacag badan ku bixiyay ma aha suitable ma aha dowladda islaam in lagu maamulo annaga marka waxaan aaminsanahay completely in la tirtiro oo aan qaadano kitaabka jaamaca oo kaliya waxyaabaha mustalaxaadka ah مثلا معناها سيدا how to regulate internet سيدا internet لو regulate كلايو term كمدحوينهم يقول نقنايا وحاسي ومصطلحات bulshadu markaas inay ka heshiiso oo wax qorto laakiin ruleska ku noowiya la kitaabka jaamaca inaysan noqonin wax laga qori karo legislation laga sameey karo ama wax ka soo horjeeda la qori karo waa maasantahay waa maasantahay arinta dastuurka iyo markaad ka hadlayso iyo in la bedelo dastuurka Soomaaliya isbedel lagu sameeyo shariicada la qaato waa wax wanaagsan ama dadka Soomaaliyeed badankoodana ay aaminsan yihiin inay wanaagsan tahay arinta shabaabka oo kale marka laga hadlayo wada hadalka dawladda waxay ku xirtay in dastuurka wax laga bedelo ciidamada shisheeye ee wadanka ay ka baxaan xisbigiina muxuu ka aaminsan yahay shabaab waxyaalaha ay sameynayaan hadda qodobka ka dhawaajisay isbedel lagu sameeyo dastuurka iyo marka laga hadlayo qodobada hadda soo dalishatay ayaga waxyaalaha ay aaminsan yihiin dhanka kale ay doonayaan dawladda inay wada hadal ay la galaan ay ku xireen shuruudoodii koowaad ay ka dhigeen bal soo
anaga haddaan reer tolku noolnahay waxaan aaminsanahay dowladda waqtigan hadda xaadirkaa jirto noocay rabtaba ahaatee marka dowlad layahana kama wado macnaha dowladda individualska kama wado waxaan ka wadaa rule of law ama systemka jira waxaan aaminsanahay systemka jira in aan la duduminin in aan la burburinin waxaan aaminsanahay in la sameeyo waxa la dhaho gradual improvement ama si tartiiba in wax improvement loo sameeyo soomaaliya waxaan ka nimid meel aad u dheer dagaal badan aan soo galnay hala burburiyo haddana hala soo bilaabo waxay qaadanaysaa hanti fara badan iyo waqti fara badan anaga we don't believe that waxaan aaminsanahay in gradual si caqliya within education of the society ayadoo bulshadana wax la barayo in wax la bedelo laakiin ma aaminsanin in from scratch laga soo bilaabo hadda ma aaminsanin ciidamada shisheeye anaga wax dhiban naguma hayaan in fact haddaan anagu istaagno oo aan improvement samayno dee ayaguna waa iska baxayaan markaas so macnaha condition hadda loo yaala oo aan leenahay waxaas haddaan la samayn waxaas ma dhacayaan anaga we don't use that tactics mana u aragno inay tahay waddo saxa oo la qaato waxaan u aragnaa inaan bulshada soomaaliyeed educate garayno inaan dadku wax u sheegno tartiib in wax loo bedelo ayadoon wax shuruuda lagu xirin waxa jirana aan la dudumin waa ka baxay shabaab maxaa ka aaminsantihiin Sufyaan well anaga haddaan reer tolku noolnahay we don't believe violence qori in la qaato oo qof Soomaaliya la dilo ama qof kale la dilo we don't believe that and therefore anagu waxaan aaminsanahay diinta islaamka in wax lagu dhaqo of course dadka qaarkiis markay diinta islaamka dabaqayaan shakhsiyan qalad bay galaan ayagii marka qaladkaas qofkii uu galayo ama ha ahaato koox noocay rataba ha ahaatee ma aha qalad oo loo samayn karo attribution loogu samayn karo diinta islaamka oo sida dadka qaarkood maanta diintoodii loogu diro leeyihiin markay arkaan qof dhahaya kitaabka jaamacahan wadanaa aynan oo taas waxaan ku nacnay group hebel ama group hebel marka anaga waxaan believe garaysanahay shakhsiyan aniga waxaan aaminsanahay iyo kooxdii talku noolba in dastuurka islaamka la qaato qofku markuu qalad galana isagay qalad ku taalaa laakiin diinta islaamku waa perfect maxamed cabdiraxmaan hasiin dhag su'aalaha u soo leexanina maxamed cabdiraxmaan soo dhow السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن سلام رمانتين سفيان waxaan weydiinayaa maadaama afar xaasle uu yahay afar naag uu leeyahay quraankan lagu sheegay إلى سبحانه وتعالى ويري ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم naagaha in loo cadaalad falo afar ninka yihiin aad u adag tahay cadaaladana waxyaabaha ugu adag ee tahay oo maxaa eeday ciqaab wato markii la dhahayo an tacdiluu bayna annisaa wal xarastumna waxaa ka mid ah naagta maanta haddii oo tan aa usoo gedid hal cambuur tan kale ina cambuur usoo gadaa tan cunugeeda usoo gadid dacs tan kale cunugeeda dacs usoo gadaa marka cadaalad intaas la egna soomaalidii aad ay u adag tahay marka dhankaas cadaaladda sidoo uu iskugu cadaalad falaa afartooda midda labaadna waxaa waaye dastuurka soomaaliya waxaan ka bedelaa uu yidhi dastuur soomaaliya haddeerta inta aragnay wax diinta islaamka kasoo horjeedo kuma jiro dastuurkaa ku qoranba haddii qodob oo diinta islaamka kasoo horjeedo uu ku jiro automatic saasoo buu ku buraaba qodobkaas marka wax oo asiga hadda miyaad ku aragtay wax oo kasoo horjeeda diinta islaamka ku ah bedelaysa dastuurka soomaaliya labada su-aalaan qabaa Sufyaan soo dhow marka hore waxaan salaamayaa walaalkay maxamed waad salaamintaa walaale kow waxaan ka bilaabayaa su-aasha koowaad aheyd cadaaladda waxaan rabaa inaan isla wadaagno kulligeen allah subxaanahu watacaala qur-aanka marka uu guurka kaga hadlayo wuxuu yidhi ha laga bilaabo laba in la guursado wankixuu maa taaba lakum min annisaa'i lama dhihin waaxida lama dhihin shuruudda macnaha marka la leeyahay macnaha min annisaa'i matna wa thulaatha wa rubaca fain khiftum anlaa tacdilu fawaxidatun aw maa malakat aymaanakum haddaad cabsataan inaanan cadaalad samaynin markaas xabad guursaan so waxa laga bilaabayo waaba labo iyo wixii ka koreeya xabad maaha xabaddu waxay timaadaa with a condition oo ah haddii aad cabsato inaadan cadaalad samayn karin marka ka soo qaad marka aniga ma cabsan inaanan cadaalad samayn karin aniga waxaan ku kalsoonahay saan hore u sheegay
biqadri istitaacati awoodayda anoo macnaha inta ay tahay inaan cadaalad u samayn karo waanan u sameeyaa alxamdulilah mahaddana ilaah iskale allah subxaana watacaala aayadda hadda walaalkiin akhala maxamed uu sheegay oo ah walow xarastum macnaha haddaad si kasta u dadaashaan cadaalad uma samayn kartaan walaa tadaruha kalmucallaqa marka sidii mid derbi suran ha uga tegin inuu yiri ilaahay micnaheeda taas marka xigmadda ku jirtaa waxay tahay allah subxaana watacaala bini aadamku wuu ogyahay asaana samaystay asaga engineerkeeniya therefore he knows allah inaan si kastoon u samayno inaanan perfect noqon karin ilaaha noo sheegaya allahna subxaana watacaala ayadu sidaasa ayuuna amray noo fasaxay 3 iyo 4 cadaaladda oo cadaalad sameeya anigu cadaalad waa sameeyaa inta awoodayda ama inta gabdhahaygu i sheegaan markaan mid wax u iibiyo ama mid gifti aan siiyo midda kalena waa siiya ayaduna i weydiisan weliba taas middaasaan u gudbaayaa waxaana ka muhiimsan oo rabaa akhana maxamed inaan u sheego iyo inta kaloo dhegeysanaysaba adduunka ama diinta islaamka waxay leedahay mufsida wa muslaxa macnaha wax fasahaadiyo dhib keenaya haddaad samayso iyo wax wanaajiya haddii marka nin kasta oo Soomaaliya hal gabar uu guursado waxaa soo haraya 6 gabdhood oo banaanka taagan oo kaleeto oo sugaya in la guursado yaan noo guursanaa gabdhaheenni marka haddaan wada cabsano kulligeed taas middaasaan u gudbaaya midda kale oo ah dastuurka oo ii weydiiyey waxaan u malaynayaa asaguna san nugula jira markaas horaan u sheegay waxaa ku jira articles 18 17 22 47 iyo 96 inta waxaa ku jira wax ka soo horjeeda diinta islaamka kow qaangaarku waa ka soo horjeeda labo sunno gudo lama samayn karaa waa ka soo horjeeda saddex waxaa la yidhi diinta dowladdu waa islaamka diinta shacabku waa islaamka lama dhihin dastuurka ay ku taala macnaha shacabka haddaa tahay lama dhihin diinta shacabku waa diinta islaamka lama dhihin waxaa la yidhi diinta dowladdu waa diinta dastuurkayna noo qoran tahay micnaheeda taas wuxuu yahay diinta Kirishtaanka ama nin sixiroola ama tan Yuhuuda ama any other religion isku sii u yihiin shacabka macnaha isku sii loogu faafi karaa waan ogtahay macnaha diinta islaamka waxay ka qabto marka walaalkeen maxamed ma uusan akhrinin dastuurka waxyaabo badan oo ka soo horjeeda jira taasna hadda hal baxay oo اوكي محمد سياد كسو عبد محمد سياد السلام عليكم اديات بايدي والسلام يا عبد الدانت شو اسف عن الله ku soo maxamed adiga ku wata sanad qadka ka xun way hadalkaaga inta hadalkaan ka dhaxgalo dadweynaha gacanta ayaan u furi doonaa dabcan qofkii su'aal wata marka dhamaantiin wad insha Allah rajaynaa inaad jaanis heli doontaan maxamed ku soo marka waan mahadsantihiin dhammaan cabdidaanta show aad baan kugu mahadcelinayaa iyo khiyaarta kale wax kaloo aad ugu mahadcelinayaa Abu Sufyaan anu hal su'aal baan weydiinayaa Abu Sufyaan caaw dhalinyar badan baa ku jirta in ka badan 200 oo dhalinyar baa ku dhageysanaya oo rag iyo dumar iskugu jira hota nin dhiiro baa taho geesinimadaadaas wax ku amaanaya rag inta badan kuma dhiiradaan afar iyo arrimahaas waxaan doonayaa su'aal kooban inaan ku weydiiyo oo bal dhalinyarada ku jira rag iyo dumar kale bal siday kuugu suurta gashay afar dumara muddo kooban oo aan weliba daahaana aad u kala weyneyn inaad guursato oo isku qanciso bal inaad si kooban oo caqliya nooga yara dhaadhiciso aad iyo aad baan idin salaamayaa gaar ahaan Abu Sufyaan baan salaamaya assalaamu calaykum aad baad mahadsan tahay xafsa ayaa ku salmaan waxaan u maleynayaa khadka ayaa ka xun xafsa ku soo السلام عليكم دما ولي السلام رمضان كريم ولكن قصها عبد الدانتوك سلامي دمان ولي السلام سلمان دما ولي السلام انت دكي سنيسو متانكي قرويرا وجوغانا ان شخص فيوك سلام عدين ولكن معان ان هاد سؤال روانا كويدي بدنا الاسويدي waxaad tiri heesta calanka ah markii la qaadayo oo niyadiina dhan waxaad caabudeen
heesta calashaan aad ilaahay camal u caabudayso ma i fahansiin kartaa ereygaas zaid waan ku celceliyey fiidiyowga aad taas ku dhahaysid laakiin waa fahmi waaye soo hees markaad dib uga laabtana waa hees wadaniyad ah oo wadankeena ka hadlayso maxaad tiri markaad dhegaysanayseen khayray nii gelisaa soo ayada camal ilaahay camal aad u caabudayso soo ereygaas miiga jaahil bixin kartaa adoo maadsan sheekaya hoostayaan cabdimani maqlaa ku maqlayaa sheekh asaa ka jawaaba amaasanta xafsi waa maasan tahay maxamedna waa maasan yahay marka maxamed su-aal uu weydiiyey xafsina su-aal ay weydiisay waxaan jeclahay inaan ka jawaabo su-aasha walaalkay maxamed si kooban uga jawaabo xafsina su-aasheedaan uga jawaabo first sidee kugu suurta gashay 4 gabdhood oo yaryar oo dhalinyaro ah inaad ay nolosha ay macnaha kugu suurta gasho isugu qanayso waxa ugu horeeyo sameeyey waxa weeyaan inaan runta u sheego waxaana baa dhalinyarada khaasatan wiilasha Soomaaliyeed inaan la wadaago xiriir kasta oo la dhisaayo waxaa muhiim u ah in runta laga abaaro marka ugu horeyso first gabadha aadan been u sheegin marka mid intaad runta u sheegto ay kugu diido mid kale runta u sheegto ay kugu diido mid saddexaad waa yeelaysaa runtii so haddaadan waxba qarsanin waxaad helaysaa dad ku qanacsan noloshaas oo jecelba ayaa buuxa oo gabdhaha maaha gabdhaha dhan inay isku mid yihiin raggii xoogaa waxaa gashay macnaha psychologically waxaana gashay gabar kasta haba inay saas tahay gabdhaha dhan saas ma wada gabar waxaa jirta markaa runta u sheegto ku qancaysa waxaad runta u sheegtay oo daacadii oo rag badan oo dhalinyarada saaxiibanaha intaan arrintaa u sheegay tilaabooyinkaas ay qaadeen ay yiraahdeen it was successful marka say ku suurta gashay waa runta iyo cadaaladda labadaas يعني runta sheegtid cadaaladina taastaan u gudbo waxaan u soo laabanayaa su'aashii xafsa oo ahayd heesta caalanka ee loo qaadayo ee officially noogu qoran naga dastuurka waxaan horta markuu horeysay inaan idiin sheego caalamka inta aan soo marayay almost waxaan sameynay research 18 wadan ayaan ku sameynay research baaritaan heesaha loo qaado caalamkooda iyo caalamkooda wuxuu yahay wuxuu uga taagan yahay xaqiiqdiina waxaa noo soo baxday wadanka ugu calanka ugu heesa badan caalamka inuu yahay calanka Soomaaliya somehow macnaha qof kasta oo fanaana hadiiba aad rabtid ba inaa salaamu calaykum ugu yiraahdo fanaana tahay calanka inaa heesto oo waliba 2 iyo 3 iyo 4 oo heesto heesta marka calanka officially noo qoran aan soo noqdo ninka qoray heesta ninka ku luuqeeyay iyo ninka qoray shay banaankiisa Tanzania ku dhashay gobolka Kilimanjaro ninka kale wuxuu ku dhashay Yemen ku dhashay miraha heesta marka anigu waxaan ahay saad ogtiinba waxaan ahaa dawladdiisa aad bar macallin aan ahaa wasaaradda waxbarashada aan soo shaqeeyay which means luqadda Soomaaliga si official hal ii bar haddana waxaan noqday reporter oo u shaqeeya radio Muqdisho waxaan ka imid gobolada dhexe oo ah meesha la yiraahdo badanaa aanba amaana gobolada dhexe meesha la Soomaali waa ka yimid micnaheeda marka waxa weeyaan dhalinyaradiina ama rag badan oo dhalinyaro ama gabdhiyo dhalinyaro markaan xafsan u jeedaa Soomaaliga macnaha wuxuu leeyahay micno la sharxu leeyahay ana markaan iskuulka dhiganayno waxaan la jiray sharax ereygan micnihiisa waxa uu yahay hadda Soomaaligii sharax male 30 sano iskuul lama aadin luqadda Soomaaliga la baran marka aan ujeedadan warkaas ka wada waxay tahay arrinta waxaan u sameynaa waxay tahay dadka Soomaaliyeed maanta dadka Soomaaliyeed maanta markii heestaas loo qaado in yar runtii ayaa fahmi karta micnaha loola jeedo marka mesela la leeyahay xidig yahay cadi waadna caawis ama la leeyahay waadna ciidamisay adaana diray micno kale ma laha qof baa wuxuu rabaa inuu u turjumo u yiraahdo de waxa laga wadaa ma aha waxa laga wadaa waa waxay tahay marka xafsa waxaan ku dhihi lahaa iyo dhammaan dhalinyarada iyo dadka Soomaaliyeed luqadda Soomaaliga ku hadla waxaan ma leeyahay wariyaashiina intiina badan ragga hadda meesha aan ugu jeedo Soomaaliya Cabdi Dhaante iyo Xaliye iyo Salmaan iyo raggaas odayaasha inaad Soomaaliga aad si fiican wax uga taqaanaan oo macnaha fahmi kartaan micnihiisa
marka arrintaas iyada ahi waa sidaas xabso micnay leedahay micnaha ay leedahana waa erey loogu talagalay weynayn keliya oo allah subxaanahu watacaala u sugan ayaa la siiyey halkaas uga baxay aad baad mahadsantahay hay royal aad u mahadsantahay cabdi iyo daadiyaasha kale ee barnaamijka sufyaan sheekh sufyaan isagana waa salaamayaa shiiqa waxaan rabaa inaan weydiiyo shiiq wuxuu sheegay in mataqaanaa cadaalad iyo waxbuu ka hadlay shiiqa waxaa lagu eedeeyey sagaashameydii in mataqaanaa reediyo muqdisho oo dad dhallinyaraa uu ku dilay isaga oo mataqaanaa u awood sheeganaya markaas qabaa'il ama wax system markaa jiray shiiqa marka annaga oon ognahay in uu dhibaatada geystay sidee marka inuu nooga dhaadhici karaa inuu yahay nin cadaalad sameeya ama ishaag maxaa lahaa uu nooga dhaadhici karaa in mataqaanaa astaantii calanka iyo astaantii qarnimada ummadda soomaaliyeed uu ku tilmaamo wax mataqaanaa been abuur ama wax aan jirin shiiqa marka waxaan rabaa inaan weydiiyo eedeynta lagu eedeeyey inuu dhalinyaro ku laayay reediyo muqdisho sagaashameydii muxuu kaga jawaabi karaa shiiqu aad u mahadsantahay royal waa mahadsan tahay waxaan u malaynayay arrintaas inay tahay agua basada ama biyo tegey laakiin waa ka jawaabaya runtii saad sheegta waa eedayntaasina ilaa hadda bulshada soomaaliyeed waxay taagan tahay uun eedaynay taagan tahay markhaatiyaalkii la keenay ama dadkii markhaatiyaalka u furayey ayagiyaa isku hor yimid ilaa haddana ma jiro shaksi binaadan oo igu caddayn kara ama warkaas keeni kara ma jiro because warkaasi ma dhicin wax dhacay maaha wax jirana maaha horena waa u yidhi haddana waa leeyahay waa waxaan beri ka ahay waa wax aanan shaqay shughul ku lahayn ujeeddada loo keenana waxay ahayd exactly sidaad hadda tiri royalow oo ah qof raba inuu difaacdo arrintii macnaha arrin asaga muhiim u ah oo maalan ah calanka iyo astaanta inuu difaacdo waxaa la yidhahdaa marka arhaman sidaan hore u sheegana waxaa la yidhahdaa if you cannot kill the message haddaadan dili karin dhambaal wadaha dil micnaheeda taas wuxuu yahay calankii iyo astaantii qaranka proofkii aan bannaanka keennay qof soomaaliya oo maanta ku samayn kara negation ama nagaga hor imaan kara haddaan kooxda tala ku noolnahay ma jiro taariikhdii aan bannaanka soo dhignay qofkii sameeyaan keennay sidii loo sameeyaan keennay calaamadii kirishtaanka ku jirto qof diidi kara ma laha marka waa nasiib darro waxaana ka hadla arrintaas cabdicasiis portal macnaha dadka arrintaas keenana waxay u keeneen in looga hortago arrintaas si aysan u hirgelinin dhambaalwadaha in la dilo marka royal walaalkay arrintaas arrin aan shaqo ku leeyahay maaha wax dhacay maaha waa wax laygu masabitay waxaan rabaa inaan u sheego ramadaan lagu jiraa bisha ramadaan caado waxay ah inaan qof kasta oo islaam ah oo dembi iga galay inaan iska cafiyo marka intii hore dembi iga gashay ama i xamatay ama warkaas beena iga sheegtay waa cafis adiguna cafisaa tahay warkaasna waxba ku jiraan saasaan uga baxay aad u mahadsan tahay waxaan rabaa salmaan jaal hadduu qadka ku jiro waxaan rabaa inaan siiyo jacfar aad ma santahay cabdi adiga iyo salmaan iyo xaliya iyo professor sufyaan dhammaantiin waa inta kale dhegeystayaasha waa idin salaama su-aasheeda haddaan guda galo walaalkii sufyaan runtii doodihiisa iyo barnaamijyadiisa in badan waa la socday kii PR noqoto cabdixaafid oo ugu kulleed sufyaan waxay tahay su-aasheeda maadaama aad carinta calanka markaa usoo noqdo calanka aad ka hadashay in badan xitaa aad tiri in lacag xitaa in lagugu siiyo aad diiday oo calanka arrintiisa ka aamus hawsha xaggee ku dambeysaa maadaama aad wax soo bandhigteen calan badan oo xidiga wata aad keenteen arrintii xaggee ku dambeysaa hawshii xaggee ku dhamaatay ilaa wixii haddaa bilowdeen oo dee matani kulool ma in lagu barto sufyaan farxaasle iyo tiimkiisa in bulshadii social media la arko mudjeedka ma taasuu ahaa mise waxay ahayd inaad ka salgaartaan arrintiina iyo hawshaa aad ilaa guntiga aad gaadhaan xaggee hawsha ku dambeysaa calankii bedelaadiisii iyo astaantii iyo meeshii wixii aad bilowdeen programkii xaguu aaday mashruucii aadaan u mahadsantiin dhammaantiin jacfar aad iyo aad u mahadsan tahay ujeedaa calankii jamhuuriyadda markuu saaran wadani baa tahay aan jeclahay in ay marka hore wax ka dhaadhacaanna waa dadka adigoo kale ah oo calanku qiimo u leeyahay because of course calanku inuu qiimo nool ahaado wax muhiim ah sababtaan u bedelaynana waxa weeyaan qiimaha uu leeyahay iyo micnaha ku jira iyo ujeeddadaan karan horta marka ugu horreysa programkii waa wadnaa annaga markii ugu horreysay sidaan dhowr horeba aan
ugu sheegay waraysiyaal badan oo bixiyey qorshihii noo degnaa wuxuu ahaa meesha aan gaarno 7 bilood aan ku tagnay inaan ku gaarno 3 sano and therefore waxaan naga dhimanaa mechanism oo ah sida inaan samayno websites sida inaan samayno offices sida inaan samayno macnaha pamphlets oo information aan ku qaybino maadaama marka 7 bilood ugu horeysay successkeenu uu noqday almost more than 100% waxaan hadda ku guda jirnaa qoritaankii iyo pamphletiskii iyo xafiisyadii iyo pageski aan sameynaynay oo ugu talagalno bulshada Soomaaliyeed inaan arintaasi qof dambe su'aal la weydiin waa ku guda jirnaa waa wadnaa propagandadii iyo macnaha inaan video tviyalka iyo social media inaan ka hadlo runtii maanta qof walba oo Soomaaliya oo dhagale ana Sufyaan wuxuu u taagan yahay iyo calanka inuu wax ka sheegay dad badan ay sameeyay research oo ay ka mid yihiin jaamacadda Soomaaliya oo ay ka mid yihiin dad badan oo mutacallimiina researchiga ay la soo laabteen wuxuu noqday Sufyaan Sheekh Axmed iyo teamka telefoonada ee saxiihin calanku waa bedeli marka calanka Soomaaliya ma hal bedelo inta aan ugu noolahay ma hal bedelo markaan waa forgotten account calanka yani u ganaanaya hadda xoogaa macnaha xoogaa attackan faraha badan ugu horyimna waxay tahay because mar kastoo dadka u sheegto wax ku cusub dadku waa kula dagaalamaya maamaha carabi ahayd almaru caduwin limajhuul qofku waxa uusan aqoon wuxuu u yahay cadow buu yahay haddaan waxa aadan fahmin cadow baa u tahay hadda maanta dadku sidii maha marka meelaha tago supporterskayga waa soo baxeen macnaha values waxaa jira hadda magaaladan aan joogo laygu marti qaado ka hadlo oo layga weydiiyo calanka dad badan oo baaritaan sameeyo ku soo laabtay meesheedaa jira marka programka calanka waa wadnaa waxaan u wadnaa taankii xaafis waxaan ka sameynay Burco Hargeysa mid Muqdisho mid 3 xaafis oo ugu waaweyn shaqadiina waa la wadaa waa mahadsantahay aad iyo aad u mahadsantahay waxaan siinayaa Loki horta aad baad in salama dhamaantiin sidoo kale Sufyaan adiga aad baan ku soo arkay hal su'aal baan qabay waxaan rabaa inaan ku weydiiyo saad noo sheegtay ama hadda koran maqlay waxaana urur oo la yiraahdo kala ku nool hormad isleedii ururaatiin inaad soo dhigtaan ama bulshada Soomaaliyeed soo wadaagtaan idinka hadda koran saad noo sheegtay waxaad dhalinyaro isku tagtay oo aqoon-yahano ah soo maadaama ururtiin ilaa waqti inta lag badan ku qadan karteen inta bulshada soo farsataan aad la doodaan bar hor farsataan ilaa hadda kaliya baan ku aragnaa marka su'aasha intaas ay tahay engineer Salami thank you very much su'aashaas waxaan muddo marin hore la weydiiyay qaabkii aan hore uga jawaabayaa anaga markii aan programkan bilaabaynay waxaan sameynay strategy la yiraahdo reverse security ama nabadayntii in la isku nabad galo oo qolaba qolo ku nabad gasho micnaheedu wuxuu yahay aniga ammaankaygu waxa uu ku sugan yahay because of ayagu inay qarsan yihiin meaning haddii maantay مثلا cadowga annagu aan leenahay cadowga Soomaaliyeed ama ha ahaado cadow Soomaaliyeed oo dad Soomaali oo cadowgii la shaqeeya ama cadow kale ha ahaado haddii aniga wax dhibaato la ii geysto waxaa la og yahay 720 qof oo kale oo safka inay ku jiraan message-kana sidoo socona haddii aniga ayagu banaanka ay yimaadaan kulligeen waxaan la gaarsiin karaa dhibaato marka su'aashaadi markaan ka jawaabo goorma idin qorshaysan tahay inaad banaanka timaadaan markii aan dareeno ama ay noo cadaato inaan arrintaani ay bulshada Soomaaliyeed qaadatay diyaar u yihiin Soomaali in ay bedelaan calanka مثلا inuu tago baarlamaanka oo kale oo laga doodo ama macnaha ay noo soo baxday ifafaalo noocaas ah dabcan waa wada dabaaldegayna kulligees macnaha ma qaadanayo Sufyaan credit kaligiis calanka annagu aan sameynana maaha midkaan ugu talagalnay Soomaaliya inay qaado waxaan ku saynay waxa la yiraahdo example oo ah macnaha maadaama Sufyaan 28 qof inta isku tageen calanka noocaas ay sameeyeen oo keena wax badan ka macna badan marka la fasiraayo haddii baarlamaankeena iyo guurto iyo dad committee loo bixiyo calanka waxay sameyn karaan mid ka qurux badan ka turjuma dalkeena diinteena dadkeena iyo dhaqankeena micnuhu waa intaas waa maasinta engineer aad iyo aad u mahadsan tahay waxaan rabaa inaan siiyo
injineer cabdirashiid cabdirasaaq baan rabaa cabdirasaaq inaan sameeyo بسم الله الرحمن الرحيم سؤال كواد waxay tahay horta taakay soo dhawo walaalkay magacaygu waa Cabdirasaaq Sheekh Aduun waxaan ka mid ahaan jiray saxafiyiintii Soomaaliyeed muddo Muqdisho ka soo hawlgeli jiray waliba idaacadda Hoon Afrika ila barkabeelnay xilligii lagu eedanay waxaan aniga Muqdisho aan joogay kadib ayaan saxaafadda dib u soo galay muddo 15 sano ah waxaan madax ka soo ahaa ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed waxaan u tahay Muqdisho waxaan aaminsanahay ama aan ognahay inaad tahay nin dilaa 15 saxafiyiin badan laayay dambigaasna lagu galay oo lagu haysto oo loo haysto arrintan calankuna ay tahay arrin booris ku qaran ay tahay marka waxaadna leedahay hal qof oo ka mid ah taas dadkaasi ma aanan dilin anigu oo shuqul kuma leh waa lagu been abuuraya miyaadna leedahay hadda dadka hortiisa aad ka leedahay su'aasheeda koowaad tan kale taakay inaad idaacadda ka soo shaqaysay inaad tahay nin aqoonyahana inaad tahay mataqaanaa intaba la iskuma diidana laakiin kiiska kan ah inaad wax dishay ama mataqaanaa in lagu haysto waxa mataqaanaa bulshada Soomaaliyeed ay ka maqlayso in calan isku qaado iyo baalkima miiska wada ka fadhiiso ka dood ka hadal mataqaanaa naqamci dadka mataqaanaa dhan oo ku toonsan aniga intaas aan ku sheegnay suxufiyaanahay 15 sano gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed baan soo ah waa ku toonsanahay waana ku aaminsanahay in arrintaas ay jirto inkastoo aan cadeyn karin ayuu qof dilaya aan ogeyn laakiin warku ummadda Soomaaliyeed meel walba gaaray dad marxaatina wala sheeganaya ummadda Soomaaliyeed anaga naga qancay arrinkan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh mahadsantahay injineer aad iyo aad mahadsan tahay congratulations inaad tahay suxufi dadka suxufiyiinta waa jeclahay runtii waa brainka ummadda sida hadda meesha aad ka aragtaanba waxaan ka doodaynaa mustaqbalkii iyo aayihii waddankeena ka doodaynaa marka koowaad waxaad tiri waxbaa lagugu soo eedeeyey of course waa lagu soo eedeeyey sax weeye waxaad ku xujisay calanku waa boorisku qaris waxaa la dhahaa hadduu boorisku qaris ahaan lahaa calankaa dambay lahaa which means haddii calanku uu horreeyey boorisku qaris ma noqon karo macnaha logically markaa isticmaashid ama caqligu markuu u shaqaynayo waayo programkan calanka ka horreeyey doodan kale in la ii keeno haddaan ahay nin dilaa oo inta qof oo laygu eedeynaa soo dilay caqlina leh mutacallimna ah masraxa ma imaadeen maba soo fuuleenba miiska which means macnaha meesha ku jira marka wuxuu yahay u malay maayo adna ma aadan samayseen qof Soomaali oo samay lahaa ama caalamka xataa intaan soo arkay samay lahaa ma jiro isagoo og in uu crime against humanity wariyaal inuu soo dilay inuu social media intuu soo istaago ama radio ama TV intuu soo istaago uu wax ka yiraahdo asagoo og inuu dambigaas galay qofkaasi the least on dhihi karno insane waa qof waalan marka taasi saad adiguba hadda sheegtay engineer waxaa tiri waa ku toonsanahay waa untuun marqaati maanta noolna ma jiro oo arkay wax alla wixii marqaatiyaalkii la soo bandhigo groupkii wax bumbunay soo bandhigeen waxay ku dhamaatay waa la ii sheegay iyo indhihiisa u ekaa iyo su'aal uu weydiiyay qabiilka uu weydiiyay iyo waxyaabo noocaas ku dhamaadeen waxaasna hadee nin weyn oo mutacallimihi wuxuu intuu shur la soo istaago qofku eedaya ma marka waxa fiican decency-ga inaan ka raacno oo aan xaqiiqa aadno aniga arrintaas 100 mar aan iri bariyaan ka ahay taas waa taas su'aasha labaad oo weydiisay ayaduna isaga iyada la xiriirtay calanka anagu maanta aan haysano waa calanka gubaystay oo sameeyay ma calan Soomaali ay samaysay nin Soomaali ma sameyn maxaa awaaliban ma sameynin aswaal ma sameynin shaqay shaqo kuma lahayn mas'uuliyadda ku saaran as saxafi waxa ay tahay inaad qodo macnaha dhagax hoostiisa waxa ku jira inaad soo bixiso waa mas'uuliyadda qofka saxafiga saaran inuu sameeyo research inaad u heliso wadankaaga maadaama ilaahay uu ku siiyey bulshadiina ay ku ogolaatay karaamada ah inaad adigu wax u sheegto oo dadkii dhagoodii aad haysatid mas'uuliyadda ku saaran waxay tahay inaad samayso due diligence and responsibility ku saaran oo ah waxa xaqiiqda bannaanka inaad keento arrintaasna baaritaan dabcan waxaan jeclahay inaad baaritaan ku samaysid waa ka baxay waa mahadsantahay engineer aad u mahadsantahay waxaan rabaa inaan siiyo dhinaca cabdirasaaq iikaadi waxaan rabaa inaan dhinaca gabdhaha siiyo gabadha ay ku qorantay waa saas ayaan rabaa inaan siiyo السلام عليكم دمانتين واني والسلام رمضان مبارك شيخ وانكو سلام أذيقنا
hal su-aal aan wataa inaan ku weydiiyo horta mid way jirtaa ilaah horta ragga wuxuu farxaas taas waaba diinteeda ku jirtaa dood kama qabin midaas mida kale aan wada waxay tahay horta qof dumaayo ma jiro mida kale furiyo dhanaa kusoo qatay oo meel kusoo istaajiye oo wareysi kaa qaaday oo ku dhahay qofkaas iyo qofkaasaa dambiilaa tahay su-aashaada toos u barabay adigoo mahadsan su-aasha aad rabta inaad weydiiso toos u abaar commenti okay qof ayaa la dhahay uu dilay qof oo been ka sheegaya ma jiro mise qof oo qof tumaya ma jiro inaad meelahaas ka imaaday waa la ogyahay maraykanka inaad Nairobi joogto waa la ogyahay qofka aad dishay been waaye ayaa dhahaysaa marka maxaa noo cadeynayo inay been tahay walaashay waa mahadsan tahay thank you very much runtii waa su-aal kooban laakiin muhiim ah dabcan marka qofka bini aadamka la soo eeday haddaan hadda inta ku imaado aan ku idhaahdo waxbaad xadday kuma saarna adiga inaad caddayso inaad waxba xadin anay waxay saaran tahay inaan caddeeyo inaan wax xadday means the accused is not responsible inuu veneration iska dhigo the accuser aa laga rabaa inuu keeno evidencegii ama caddayntii waxaan ugu samey qof kastoo maanta jira waxaa la dhihi karaa waxaa dishay qof kastoo maanta jira waa la eedayn karaa qofka laakiin qofka eedeeyey waa inuu bannaanka soo dhigo wuxuu ku eedeeyey marka walaashay waxaa laga rabaa mas-uuliyaddu waxay saaran tahay dadka eedeeyey inay soo dhigaan bannaanka markhaatigii keenaan qofkii arkaaya keenaan ilaa haddana lama hayo daan micnaheeduna waxa weeyaan waa waxaan waxba ka jirin waa ka baxay aad u mahadsan tahay waxaan rabaa inaan siiyo cabdiwaaxid adiga cabdiwaaxid okay xasan salwa ku sax xasan salwa aad u mahadsan tahay cabdi xaliya iyo salmaan sidoo kale sufyaan waan salaamayaa waxaan rabaa aniga horta ma gelaayo kiisaskan kale oo tirada badan leh hadday noqoto calanka hadday noqoto eedeynta oo lasu shaacidiyey waxaan rabaa midda magaca dala ku nool inaan maaragtay su-aal ka weydiiyo ustaad rag badan ayaa waxay maaragtay aaminsan yihiin ama yidhaahdeen magaca dala ku nool ma ahan dee urur laakiin waxaa la yidhaha magaca reer dala ku nool inuu yahay magaca reerka ka soo jeeda adiga ama aad ku abtirsatid oo ilaa iyo maaragtay saasoo dhowr qarni ka hor xataa loo aqoon jiray marka waxay leeyihiin magacaani ma ahan magac urur waa magaca reerkiisa reertala ku nool marka sidee ku kala ogaa karnaa inuu urur yahay oo aad adigu ku jirto member ka tahay iyo midka aad ka tirsantaho qabiilkaaga uu yahay oo loo yaqaano see ku kala ogaa karnaa adaa masan xasan aad iyo aad u mahadsan tahay waxaan ku qoslayaa because of waa sax way jirtaa su-aashaas hadda kor halii weydiiyey aan caddeeya marka macnaha 100 qof xasan la yiraahdaa 100 qof cali la yiraahdaa 100 qof millions of individuals maxamed la yiraahdaa markaan magac la baxayno ama ururadan hadda xisbiyada hadda jira xisbi walba magacaan dada ugu horreey ama meel uu ka keen macnaha waa un training aadaysata waa waxaan dhashay waa xaqiiq magaca dadka aniga aan ka dhashay waa la yiraahdaa magacaas tala ku nool reer tala ku nool la yiraahdaa intaasoo qarni soo jira waa sax been maaha hase yeeshee xisbigayga aan ka tirsanahay waa la yiraahdaa waayo markii aan isu nimidoon dooranaynay magaca waxaan dooranaa magac Soomaali ah ma aanan dooran magac English American jooga markaas San Diego especially and we could choose name or western kayim mid waxaan dooran karnay Carabiya mid waxaan dooran karnay Spanish mid waxaan dooran karnay dhaqamo wadamadaas kale to Inca iyo empires kaas kayim laakiin waxaan dooranay magac aniga aan aqaano micnaha uu leeyahay iyo faa'iidada uu leeyahay aniga agteedana qiimo kale ayaan ula baxay ayaan u bixinay xisbiga saas uu ku yimid marka xisbigana waa la yiraahdaa tala ku nool ururkeena qabiilka aan soo jeedana waa la yiraahdaa labadaba sax weeye waa maasanta
thank you waa very much aad u mahadsan tahay ninka su-aalahan weli ku soconaa cabdirasaaq aad u mahadsan yahay haddana waxaan siinayaa cabdirasaaq cabdirasaaq soo dhow السلام عليكم lamaan xaliye mustafa wariyaasha meesha ku jira dhammaan ummadda soomaaliyeed inta dhegeysanaysa soo joogta dhammaan waxaan leeyahay ramadaan mubaarak horta walaalkay sufiyaan dadku inta badan su-aalo oo lidi ku ah ama shaqsiyan abaarayo ayay wada weydiiyeen iyo qaar calanka ku saabsan aniga waxaan rabaa su-aal ka yara duwan oo bulshadana xoogaa u wanaagsan in aan saqshi ahaan u weydiiyo ururkiisana aan ku saabsaneen su-aasheeda waxay sheegaysaa dhahaysaa inta badan dadku waxay kugu mucaaradeen maalinta horta waxaan kugu baranay 4 xaasilnimo nagu soo gashay intaan wada ognahay dadka ku mucaaradayaan waxay u wada badan yihiin dadka xun 4 xaas ee soo wada bandhigtay research markaan sameeyay dadku waxay u wada bateen dad wada iskaabula ah aan guur soo marin ama aan maaragtay guur ku tala jirin ama guur cabsi ka qabo marka waxaan rabaa inaad dadkaasi ma jirtaa wax faa'iido ama wacyigelina aad u samayso shakhsi ahaantaada oo dadkaasi u sheegto oo tiraahday guurku inuu wanaagsan yahay la guursado dhibaato qabin u baahanta dhalinyaradu inay wada guursadaan xaaraanta ka fogaadaan ma jirtaa wax adiga gooni shakhsi ahaan uga faa'iideysa maadaama aad tahay nin waayo araga haddana dadka hoos wada fadhiya aan inta badan wada iskaabul u badan yihiin marka su-aashaasaan rabay inaan dad aan ku weydiiyo dadkana aad dareensiisid in maaragta guurka iyo mustaqbalka wax wanaagsan yahay mana rabo wax lidkuga inaan ku weydiiyo dadkan waxaan dhihi lahay qofka walaalkiina mar walba su-aal sakshiyana oon u haynin maaragta wax ujeeda gaara aan u haynin ama cadeen u haynin inaan weydiin aan ka codsalaa su-aashaasaan rabaa inaan ku weydiiyo sufyaan walaal macna waa maasantahay waa mahadsantahay waan siinayna su-aasha waxaan codsanaynaa asxaabta kale groupka ku jirta su-aal hore loo weydiiyey inaan lagu soo noqon su-aalaha kale inoo haray ama la rabo in fursadda looga faa'iidaysto marka su-aasha inkastoo su-aaluhu ay yihiin su-aalo furan haddana waxaa habboon su-aal la weydiiyey inaan dib aan loogu laaban marka jawaabtan ka sugayna sufyaan walaalka cabdirasaaq aad iyo aad u mahadsan yahay thank you very much waxaan rabaa inaan arar la sii baxo intaanan su-aashaas ka jawaabin aniga waxaa la yidhi durbaan ninkii tuma asagaa u yeertay dadka asagaa u yeertay marka maadaama anigu campaign oo national ah ama international aan ku jiro in lay mucaarado lay weeraro lay caayo waa ku talagal mana ka cabsanayo mana cuqdan uga qaadi maayo qofkii i weydiiye su-aal personal attack ha ahaato ama xataa cay ha ahaato waana cafiya oo hadda ramadaan lagu jira wasaan idin sheegaba qof walba waa cafiyey laakiin cabdirasaaq with his decorum and manner very much markaan ka jawaab marka su-aasha cabdirasaaq uu weydiiyey ramadaanka hadda gudihiisa inta lagu jiro waxaa ii ballansan ugu yaraan 3 meetings oo ah 3 jaamacadood oo kala duwan oo meesha aan aniga deganahay ku yaalo oo aan rabo inaan lecture hall usaan tago macnaha aan arrintan ka sameeyo lecture faa'iidada guurka uu leeyahay sida loo guursado iyo waxyaabaha fududeeya campaignkaas waa ku jira xafladaha meelaha hadda magaaladan aan joogo aroos marka la aroosayo haddaan 4 xasil looga yeerin ma barakaysnaba dadka qaarkiis ay aaminsan yihiin markaan meesha tagana runtii waxaan isku dayaa macnaha in aan wacyigelintaas inaan sameeyo waa run dadka badanaa i weeraray waxay u badan yihiin iskaabul ay u badan yihiin especially gabdhay u badan yihiin oo arkay gabdhuhu inaan ayaga weerar ku hayo gabdhahan ayaga weerar kuma hayo ayagaan u faa'iideynaynaa culayskana waxa aan saarayaa marka cabdirasaaq intaas horena waa u sameeya haddana waa ku tala jiraa waana wadaa waa mahadsantahay waa mahadsantahay diva ismaaciil ayaan siinaa assalaamu calaykum aad baan idin salaamayaa dhammaan wadarayaasha iyo safaan waa su-aashaydu waxay tahay waxaa tiri hal xaaslaha ayaa ka 4 xaaslaha ka farxad badan waxaan ku dhihi lahaa waad aragtay gabdhuhu markay walacaan way dhibaato badan yihiin xanuuno badan hadbay faa'iidaystaan qaylo waxaan ku dhihi lahaa su-aashaas adigoo iga jawaabaya si daacada sufyaan haddii 4 xaas hal mar ku wada walacaan sidee dareemi lahayd sideese cadaalad aad u siin lahayd 4 xaas iyo caruurtoodii aad haysatid aadan qurbahana waad iska ogtahay waxaan filayaa qof wax bartaa tahay qurbahana ku nool qurbahana way iska dhib badan tahay faamil ahaan 4 xaas iyo caruurtoodii iyaga oo ku walacay sideed u maareyn lahayd adoo cadaalad u sameynaya asalaamu calaykum waa mahadsantaha diva sufyaan diva waa mahadsantaha walaashiis thank you
أنا هرت الحمد لله عاو وقت كان هذا وهذا الله والله. ما شاء الله. Thank you very much. لبا والله. وحويا مركا family mechanism waxa la dhahaa jirto qaab nidaam degsan. waxaa laga yaabaa labadooda walaca mid ka mid ah gabdhaha mid ka mid ah la joogta cuntada loo kariyaa macnaha wax alla waxay rabtaa loo sameeyaa si looga ilaaliyo stress ama problem inuu ku furmo waayo gabdhahaygu aniga kulligood saaxiibo wey dad isfahmay maadaama runta aan kula dhaqmo maadaama aan waxba isu dheeraysiinin maadaama wax walba aan isla ekaysiiyo waxaa timid kalsooni ah inay qof walbaaba ay ku jirto kalsooni in uu qofka kale uu leegyahay oo ikaw leeyahay marka stresska markii anigu hal aan qabay oo gabadha igu walacdo igu imaa jiray iyo kan hadda igu yimid waxaa badnaa kii markii igu imaa jiray because psychologically markii hal xaas aa qabtid oo ay walacdo ama waa kugu walacaysaa ama waa kaa walacaysaa hadday kugu walacdana meaning waxa weeyaan dee waxay kuu noqonaysaa obsessive oo waxay rabtaa markasta inaad la joogtid hadday kaa walacdana inaad ka maqnaatid aniga waqtigan xaadirkaa hadday ama igu walacdo ama iga walacdo labadaba waxaan haystaa leeway means qaab iyo mechanism aan uga dabaasho marka hadday ii fududaha noloshu waayo gabadhii waxaa joogtaa gabar kaloo ayada walaasheeda saaxiib ay yihiin la isla qabo oo u tegaysa oo caawinaysa ayaa la joogta keligeed ma aha anigii waa jooga marka waa qof haysata entertainment ku filan dad u adeega iyo husband oo care siinayo marka waa sidaas waa mahadsantahay asad jire gudoomiye xaliye salmaan cabdiraanta dhammaan waan salaamay iyo barsoorka أنا waxaan weydiinayaa barsoorka laba su'aalood su-aashu kale waxay tahay barsoor goormaa ogaatay in calanka soomaaliya oo qaldan yahay yani oo calan shadan yahay xilligee ogaatay su-aasha waxay tahay waxaa jiraan dad badan oo aqoon-yahano ah oo PhD holders ah oo taariikh iyo waxba kaaga aqoon badan marka maxay tahay dadkaas qaladka is arkin oo adiga ku tustaa ma laga yaabaa inay jiraan waxyaalo dad kale oo dagaal ka riixayo oo ah inaa baabiis jirtaan dhan iyo calanka Soomaaliyeed inaa hay'ad cagta hoostiisa gelisid laba su'aal ku weydiiyo ana mahadsantahay waa mahadsantahay asad sufyaan Asad, thank you very much. Was runtii laba su'aalood oo muhiim weeye. First of all, aniga markii ugu horreysay oon arkay waxaan ahaa arday research aan sameynaya baaritaan jaamacadda waxaan research ka sameynayay American Civil War dagaalkii sokeeye ee waddanka Mareykanka waxaan tegay meel calanka Soomaaliya u suran yahay waxaana isla markiiba ogaaday kadib markii aan weydiiyey calanka meeshaas suran inuu u suran yahay ama uu yahay hoolku meel lagu caabudo shaydaan devil worshippers ama satanism diinta la yiraahdo in calankani meesha u yaalo halkaas ayaan baaritaanka ka bilaabay ilaa iyo maantay baaritaankana wax dheer soo maray dabcan informationkana wuxuu ku jiraa social media taas waa midda ah dad badan oo ka aqoon badanaa jira statementigaasi waa incorrect because aniga measurement ma aadan samaynin aqoonta aan leeyahay iyo waxa aan aqaano ma aadan ku cabirin kuwa kaleeto therefore ma dhihi kartid waa ka aqoon badan yihiin ama waa ka aqoon yari ma dhihi kartid researchka qof uu sameeyana kuma xirna aqoonta qofku waxay ku xiran tahay qofkaani fielka ama waxbarashada uu bartay مثلا hadda historian dadka ah ama taariikhda dadka bartaahay waxay bartaan waxa la yiraahdo narrative-kii inay ku celiyaan waa aragtay rag badan oo hadda waxaa jooga Soomaaliya oo lagu tilmaamay inay taariikh barteen laakiin markay taariikh ka sheekaysanaan waxay noogu celiyaan wixii buugaagta noogu yaal simple ama waxay hadday wax ku soo daraan waxay ku soo daraan wax jiray oo aan dareemi karnay laakiin naga qarsoonaa balse wixii la qoray intii la qariyay ay soo saareen waa dadka macnaha la yiraahdo historian la yiraahdo taariikhi marka la yiraahdo historian marka la yiraahdo marka macnaheedu saas ma historian caalam marka la yiraahdo waxa loogu talagalay qofkaani taariikhda had iyo jeer waxa qoray ninkii guuleystay always taariikh kastoo aragtid wax walbo qoran shakhsiya qoray wuxuuna u qortay inuu asagu because of inuu guuleysto meeshaas ninkii guuleysta taariikhda qoran so waxa la rabaa marka taariikhyahan aad tahay ninkii guuleysto wuxuu uu qoray wixii qaldanaa inaad ka soo saari kartid
therefore aniga maadaama takhasuskaygu uu yahay takhasus ka duwan taariikh aan ahayn laakiin ah research political science macnaha siyaasadda oo 4 nooc leh diimaha kala duwan oo caalamka macnaha tusaale waxaan kuu siinayaa in aan ka dhaadhiciyo astaanta qaranka calaamadda ku jirta calaamadda kirishtaanka inay tahay plus aysan ahayn waxay ugu qaato almost 5 months 5 bilood maantana dadka waa u cadda marka qof aan aqoonin nin marka professora oo aan waxaas aqoonin ma fahmi karaba waa professor laakiin wuxuu soo bartay waxaas wax ka duwan diimaha caalamka iyo siyaasadda caalamka iyo dhaqamada caalamka ma uusan soo baran ma yaqaan calaamadii Greek Christian Cross oo ku jirtay wadanka Switzerland wadanka Georgia calankiisa kan Greek ku jirtay Red Cross-kii ku taalay meel kasta marka isbitaalada tagtid maanta ugu qoran waxaa nin professor oo mutacallim wuxuu ku doodayaa calaamadan waa ku dar marka jawaabta waa sidaas anigu takhasuska aniga aan bartay ayaa ii ogolaaday in aan u fahmo si gooniya waxaan sameeyo kala research taarikhyahanada Soomaaliyeedna waxaan nasiib daraa inay ku celiyaan wixii hore u jira maahane wax cusub inaysan bulshada kusoo dari karin waa mahadsantaas waa tahay Sufyaan haddaan raacsado bal meesha ay kaga jirto calaamada kiristanka calanka bal taasna rabnaa inaan bal faahfaahin naga siiso Salmaan calanka maaha meesha ku jirto waa astaanta qaranka inteeda koreeto labada shabeel dhexdooda waxaa ku jirta 5 xabo oo Greek Christian crosses ah 3 waa dhamaystirantaa 2 waa half وهاجك فوزي السلام عليكم دمانتين أودين حريص دوشين الله كيالو وسلام يا مديريتر هذا عبد الدانتي حاليا مصطفى ولالك سلمان جمال sidoo kale professorka waa salaamaya dhammaan inta kaleete ee ka soo qaybgashay barnaamijkan aad adinkan waxaan leeyahay assalaamu calaykum niyo professorka dhowr su'aalood weydiin lahaa ani magacii waxa fawzi weeyaan dushaan joogaa dhanka iyo baalka cilmi baaris researchka ku fiicanahay Sufyaan markii ugu horeysay aan barnaamijkiisa oliisa calanka aan arkay waxay ahayd ramadaankii ku horeeyay waliba live-kiisii ugu horeeyay bishii May in heedan fila oo barnaamijkaas ka soo galo ilaa hadeertan waa la socdaa Facebook friends aan nahay laba ciwaan oo leeyahay labada ciwaan Facebook friends aan ka nahay barnaamijyadiisa iyo doodihiisa aad u daawaday oo aad uga warhaya ilaa hadda ayaan la socdaa inkastoo ayaan tahay gaabis ku sameeyay oo waxyaabo kale u jeestay oo calanka awli diiradda u saari jiray isbuuc kasta marka aniga doodiisa ma taageersani aadaan uga soo horjeedaa waxaana dareemayaa in waxyaabo badan oo been ay ka buuxaan waxyaabo badan oo khaladaadan ay ka buuxaan waxyaabo badan oo been abuurashaan ka buuxaan Sufyaan asaga hadda wuxuu diidan yahay in la dhaho 91 ayaa dad dhameysay halka baalkii uu iska fogeynayo sidoo kale wuxuu xaqirayaa oo uu diidan yahay in Maxamed Cawaale Liibaan uu calanka sameeyo asagii iyo nool fiidiyaashii laga duub uu sheegay inuu asaga oo calanka uu sameeyay oo afkiis ka qiranaya maanta leeyahay Sufyaan asaga wuxuu leeyahay aniga la igu soo cadeey okay Sufyaan waxa laga rabaa inuu soo cadeeyo waliba dukumiinti cad uu ku keeno Maxamed Cawaale Liibaan inuu soo sameeyo calanka midda labaad calanka waxyaabo badan oo Sufyaan uu ka khalday uu baalkii video-gii horeeyay waa cabsaaq ilkaasina leeyahay inuu la yeeshaa fila wuxuu aad ugu xadgudbay Maxamed Cawaale Liibaan waxaan rajeynaa inuu raaligelin ka bixiyo wuxuu kale ku xadgudbay oo sidoo kale ku xadgudbay abwaankii sameeyaysta calanka si shakhsiyan u weeraray haddana ma ogola asaga Sufyaan in si shakhsiyan loo weeraro waxaan rajeynaa inuu ayadan uu raaligelin ka bixiyo mid xigta waxa weeyaan taariikha iyo waxyaabo khaldan buu sameeyay calanka horta astaanta qaranka uu leeyahay calaam Kirishtaana ku jirto calaam Kirishtan kuma jirto balaasa ku jirtay dadka leeyinu leeyahay afkaasa dadku u galinaya balaasna kuma jirto calaamad kale ku jirto calaamadaasna waa calaamada saxda ee astaanta lagu sameeyay barnaamijka waa ka xumaa haddii ama hadalka dhameeyo waxaan ka baqaa in follow up malan hoos waxaa samaynaysaa commentiskaaga waa dhegeysanay su-aasha u gudub ee labada su-aalaha qabto inaad u gudubtaa fiican wixii commenta waxa kale aad weydiisataa ka jawaabi doona bal su-aalaha u gudub adoo maasan Fawzi okay Salmaan aad u maasan tahay follow up barnaamijka jira follow up kii hormarsanay marka dhib ma lahan su-aasha aan weydiinaa Sufyaan waxay tahay Maxamed Cawaale Liibaan wuxuu ku dhintay 2001 Toronto adigana xiliyadaas ayaa Canada iyo agaarkeeda ka tagtaa la sheegay sida la sheegay
markii uu dhintay maxamed cawaale liibaan miya macnaa nin tegistiis nin bay faa'iidaystaa miya sheekadu maxaa cawaale maadaama uu dhintay xilligaasaan research soo bilaabay aa leedahay xilligaasaad hadal qabsanaysaa markii uu dhintay haddii ogaatay markii intuusa dhiman oo aad ogaatay labada koodii juun uu dhintay maxaa uu tegi weysay oo u weydii weysay su-aashkooda midaas oo u wareysa weysay asaga dood ula geli weysay midda labaad aan weydiinaya waxay tahay sanad 2019 Nairobi ayaa kusoo dhaweysay Professor Shirwac gudoomiyaha golaha Hawrgidir calanka adigoo kor u haya calanka Galmudug oo ay ku jirto abaalka calanka Soomaaliya oo gees ugu jiro waxa kaloo garabkaaga surnaa xafladiisii barnaamijka abaalka lagu soo dhaweynay Professor Shirwac garabkaaga waxa ku dhaganaa baalkii suudka waxa ku dhaganaa calanka Soomaaliya 2001 hadda soo bilcay marse maxaa ku dhijiyay calanka ka aaminsanayd inuu shaydaan ugu cabbo maxaa ku dhijiyay 2019 garabkaaga waa maasanta laba su'aal weydiinaa salaam waa maasanta soo Sufyaan fawzi horta aad iyo aad u mahadsan yahay su'aalaha noocaas oo kale aadan u jeclahay iyo qofka saas oo kaleeto oo runtii waxa uu su'aasha u weydiinayo deeply u aaminsan ama ay qiiro ku hayso it's very good why because waxa qofkaasi waxay u badan tahay inuu qanco marka su'aasha looga jawaabo marka su'aalihiisa aan ka jawaabo mid ugu horreeyay dadooda calanka ama su'aal geliya aniga maahay maxamed cawaale liibaan asagoo nool ayaa su'aal la geliyey 1982 doodaa la geliyay calanka dowladdii siyaad barrow joogta ayaa la rabay in la bedelo 1983 maxamed cawaale liibaan waraysiga uu bixinayo midaas laakiin kalarka eedaan filayaa Sufyaan tan hadda ka hadlaysid dood la geliyay kalarka ma kalarka ma ahayn maxamed cawaale liibaan 1983 waraysigiisa asaga ku cadeynaya in lagu haysto calanka wuxuu leeyahay waraysigiisa ku jirta dad kale calanka asagu ma samayn waa beentood anaa alifay waraysigaas qof walba maanta fiirsan kara waa ku jirta taas laakiin dooda waa ma ahayn calanka oo samayntiisa qolo kale ama dad kale ay ku haysteen iqtiraacida ama alifida calanka in la bedelo ma ahayn maya hadde waxaaba lagu haystay macnaha waxaan hadda anigu leeyahay oo ah calanka asagu ma samayn markaasna waxaa la dhahay calanka asagu ma samayn 1983 markuu isdifaacayo aniga markaas dee nin xataa waxaas fahmi kara ma aanan ahay marka walaalkay fawzi waxaan ku qancinayaa arrintaani ma aha arrin hadda dhalatay waa mid oo qofkii ugu horreeyo oo arrintaas yiraahda horaa loo yiri waxaa kaloo rabaa inaan ku qanciyo walaalkay fawzi iyo dadka kale meesha ku jira annaga waxaan banaanka keenay taariikh waa ma aha wax oo aan iska samaynay iyo hadal aan iska niri iyo nin hala weeraro iyo shakhsi ha lagu xadgudbo iyo ma ah history tan ninkii astaanta qaranka sameeyey taariikhdiisii waqtigu sameeyey magaciisii aa qoran waa mid calanka markii la keenay Soomaaliya sidoo oo ka waqtigii la sameeyey iyo waqtigii la sheegayo way kala duwan yihiin ninkii sameeyey taariikhdii waqtigii la sameeyey markii golihii Talyaaniga la soo mariyay ee laga soo approve gareeyo Rome ee la soo celiyay taariikhdiisa qoran program yar waxa ka sameeyay nin la yiraahdo ha noolaato dabcan Cabdirasaaq walaalkay waxaan jeclahay inuu daawado arrintaas oo uu ku laabto marka waxna waxa weeyaan waa aanan anigu hadalka iska yiri waxna waa research iyo taariikh cad oo aan banaanka soo dhignay waxaan anaga banaanka keenay ma aha wax oo aan macnaha iska leenahay ama hadal iska yiri maaha waa taariikh cad oo leh chronological macnaha isku xiran kasoo bilaabanaysa 1889 calanka Soomaaliya maanta aan haysano ee buluuga ee xidigta ka dhaxda ku leh Soomaaliya waxaa la keenay 1989 soddon sano kadib cawaale dhashay so therefore logic ma aha cawaale inuu sameeyo midda kale taariikhda cawaale hal akhriyo cawaale taariikhdiisu waa cad wuxuu ahaa nin talaan uu soo korsaday wiil ayuu ahaa talaan wuxuu markasta ka qayb qaadanayay uu garab siinayo gumeystayaalkii wuxuu ahaa nin u shaqeeyay ama secretary ka xafiiska ninkii la dhihi jiray ninka la Graciani iyo generaalkii kaleeto oo xasuuqay Soomaalida ayuu adeegay markii Ingiriisku la wareegana gaalka ayaa la geeyay sidoo kale ugu adeegay waligiis ma ahayn qof oo halgamaa ma ahayn mutacallima
cilmiga kaliya uu bartan wuxuu ahaa iskuulkii missionaryga ee lagu gaalaynayay dadka Soomaaliyeed oo ilaa taariikhdaas 40 laakiin kun oo qof sufyaan xaggee ku qoran tahay taariikhdaas lama haye taariikhdaas kolley waa waxaa qoraalkiina been lama hayo taariikhanada soomaalidana ma aysan wax qoraal lagama soo saarin bal qoraalkaas haddaad hayso waxaan jeclaan lahayn bartaad inaad dadka la soo wadaagto labada waxaan su-aal rabaa kale ee fawziyaan jeclaan lahayn inaa u gudubto adoo waxaan rabaa inaan la wadaago hal xabo oo ah arrintaas ninkii raba inuu ka qanco TV-ga Puntland barnaamij la yiraahdo geesigaaga ayaa lagu soo bandhigay inta aniga aan leeyahay waana ka baxay labada su-aal kale oo fawzi ku weydiiyey intuu cawaalo noolaa maxaad ola kulmi weyday nairobi markii sharwac lasoo dhaweynayna calankii soomaaliya aad suudkaa ku xirnaa ma gadaal ayaad ka ogaata calanka inuu calankii saxad ahayn labada midda oo calanka oo waa lagu dhejiyay meesha taasi waxa weeyaan ma aha mid aan ku dhegsaday waa lagu dhejiyey tan oo ah markii shirwac la soo dhaweynaya calanka galmudug inaan gacanta ku hayay waa wax saxa been ma aha hase yeeshee ujeedada markaasi waxay ahayd in aan samayno in problem jira laga gudbo sidaan hore u sheegaba aniga maanta dastuurka Soomaaliya ma aaminsani laakiin haddana taasay tahay ma ku xujaynayo ama xujo ma aha in la bedelo ma aha wax walba gradual loo bedelaa qofku markuu mutacallim yahay waxa laguma soo boodo laakiin midda calanka oo igu dhagan xabadka igu dhagan waa wax la igu dhajiyay waaye oo laga shaqeeyay is not true adiga raali kama ahayn miyaa maba aanan nagu xiranba weligay calankaas ii xiran suudkaas aniga suudaan leeyaho aniga aan ku labista maba ahaynba suudadkay ka mid maaha wuxuu ahaa suud la ii geliyey waa wax la sameeyey waa hagaag qaali soo dhawow السلام عليكم دمانتي وايد سلام أنا ميا مس ويلكو خالد waa ku imaanaynaa khali أوكي السلام عليكم دمانتي وايد سلامي walaalkayga ali waxaan rabaa inaan weydiiyo horta ilaahay waa u baneeyay xaq waaye in afxaas guursado laakiin waxaan kaliya rabaa diinta u baneysay inuu xaasaskiisa social media soo dhexgeliyo inuu ii sheego mis sufyaan diin iga xarintay ma jirto laguma oran xaasas waxay ku weydiisay sababta aad u keentay social media su-aashaas ayaan filayaa waan gartay su-aasheeda macnaa waxay tiri diinta kuu banaysay maxay tahay marka waxaan diin iga mamnuucda ma jirto waa su-aal waa jawaab gaaban laakiin waxaan u keenay social media ama aan usoo bandhigay waxay ahayd saan horeba u sheegay waxaan ahaa qof oo islamista ah oo u taagan siyaasadda islaamka waxaan rabaa ama aan u ololeeyaa in guurka la badiyo dadka Soomaaliyeed inuu bato waxyaabo badan oo dhibaato ah dumarkeena haystana in laga gudbo oo guurku uu noqdo wax caadiya waxaan la yaabin lagu horumariyo bulshadeena shacabkeena iyo dadkeena waad yaxya ismaaciil yaxya salaama dhammaantiin si gaar waxaan u salaamayaa sufyaan waxaan weydiinayaa sufyaan calanka Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed oo dhan aaminsan ama muslim ha ahaadaan Soomaali muslim ah oo Soomaali Christian ah marka calanka adiga hadda aawado iyo xisbigiina midnaba xisbi marka inaan ku kala qaadaan rabaa calanka aawadiin iyo dastuurka in meel marisan ku fikireysaan dadka diinta Christianka wata ee Soomaalida ah muxuu ka aaminsan yahay maxaa ka leedihiin groupka 28 personka ku tihiina dad Christian ku jiraan ama gay ha ahaadaan ama gabyana ahaadaan sida oo dadka bini aadamka u kala qaybsamaan adduunka marka intaas ku soo gabagabay labada su'aalood waa maasantaa yaxya waqtigu ciriiri ah marka su-aalaha waa isxasanaynaa marka sufyaan waxaan ka codsanaynaa nood inuu haysto oo samaysto oo si uu su-aalaha usii qorto ardaa siinina ardo salmaan aada idin salaamaya walaalo waxaan jeclaan lahaa abu sufyaan inaan weydiiyo hal su-aal waxaa eedan loo soo jeediyay in idaacad rag oo ku laayay sufyaan miyuu waayey laba ama hal ka mid ah shaqaalaha idaacaddaas waagaasi oo dhaho raggaas ay kala shaqayn jiray
oo markhaati ii ah oo inaan wax dilay in kaleeto waana masantihiin waa mahadsantahay labadaas su-aal ayuu ka jawaabayaa sufyaan kadibna waxaan u gudbaynaa su-aalaha absolutely su-aasha ugu horeysa walaalkay uu weydiiyey anagu haddaan kooxda tal ku noolnahay kulligan waxaan ahaa dad islaama aaminsan diinta islaamka raba inay ku dhaqmaan dastuurka islaamka waddanka soomaaliyana waa dad islaama gaal kirishtaan wuxuu raba ahaada wax xuquuqu ku leeyahay malaha absolutely we don't believe in gaal iyo lesbian iyo gays inay xuquuq ku leeyihiin